بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. walaalayaal waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka. rabbi shrah lii sadrii wayassir lii amrii wahlul cuqdata min lisaanii yafqahu qawlii. soomaali meeshay doontaba ha joogte dal iyo dibadba waan salaamayaa. maanta waxaan jecelahay in aan soo tabiyo arrin aad iyo aad dhibaatadeedu ay taagan tahay oo ah maxaanku idhaahdayey dalkan ayaa zaylac maxaa dhibaatada ka taagani ay tahay. maxay dhibaatada ka taagan zaylac ay tahay? maxaa la iskugu haystaa? ayaa leh dee ciddiila taariikhdaa sheegi. dee ninkii taariikh hayow taariikh soo dhowee. taariikh baa loo baahan yahay. taariikh ninkii hayow taariikh soo dhowee oo wax qoraal ah oo hore oon iminka ahayn, wax la qoray ahayn, oo jiri jiray oo taariikhda sheegaya soo dhowee. anigu maanta waxaan idiin soo dhoweynayaa ama aan idiin soo tabinayaa taariikhda zaylac iyo cidda leh buugga aad aragtaana sidaa u dhintay oon hayo 55 sannadood. bal fiiri hadda 55 sannadood baan sidaa u xajinayay oon waddan kastaba la maray. waxaan ka qaatay maktabadda ama librariga khartuum university kolkuu sanadku ahaa 1970 oon u haajiray oon refugee ka ahaa. cabdiraxmaan tuur baa kolkaana ambasaadeer ka ahaa oo baasboorisiye soomaaliyeed oon dibadda uga baxay, oon masar ku tegey, oon yurub ku tegey, oon ciraaq ku dambeeyey, oon ciraaqna ka imiday 80-80 oon ku imiday jabuuti, oon haddana jabuuti ka tegi doono, oon adsaaba ku noqon doono, oon adsaabana ka tegi doono, oon halkan iman doono, oon wax walba howlo badanna aan soo qabtay. aan dhib halkaa oon laabtaa ku hayay buugga uunan iga lumin. akhristii badnayd buu kolba jidku iga lulumayey mooyaane, laakiin sidiisii kale gudihiisii wakaa waa sidiisii, waa coverka sare un. marka kaasaan ka hadlayaa. buuggaasi waxa uu qoray magaalada zaylac, wax badan buu ka qoray. soomaalida meelaha agagaarkeeda deganna waxbuu ka qoray iyo waxay yihiin. marka ciise wuxuu yidhi buuggani waxaana qoray ninka la yidhaaho الدكتور محمد القسيم. بوغا مجعيسنا هندين شيغا وحوين الدولة الإسلامية في شرق أفريقيا، هرر والصومال. الدول الأفريقية في شرق أفريقيا، هرر والصومال. ووقتي وجوي مسارده وحكومي رؤوف باشا وحو موقتي نكني كقري. مركب حولي هي رؤوف باشا وقت جيساس واحد دقنت من زيلع إلى هرر ضد صوماليا أو عيسى يا دقنا أو محنكو لهداي تجارة كالسعطة من زيلع إلى هررنا نبت قليديسة إلى ليني أو قاديينا أو أوركو قاديي أو جيني هرر إيو maxaanku idhahday suldaanadii ma ogtahay kale harar dirdhaba u jirta 2 kilomitir meelaha oo la yidhaaho suldaanadii maxay ahayd xarla. suldaanadii xarlana waa reer ciise iyo reer daarooda oo hartiya unba labadaa reerood baa xarla wax la yidhaaha jira. anigu kuma sii dheeraanayo ciddaabaa lama odhanayo, laakiin xarla labadaa reerood bay ku kala jiraan, laba qabaa'ilkaas ciisaha iyo hartiga. marka
waxa weeye airportka harar haddaad dhaafto, waa airportka harar, airportkeeda haddaad sidaa u dhaaftod xagga miyiga u kacdo, beero iyo xoolo dhaqataba ciisa ku leh, reero ciise ah yaa ku leh ilaa maantadan aan joogno. marka waxaan sheegayaa in uu ma ogtahay ciisuhu halkaas taariikh ahaan way ka sii horeysay waqtigan iminka ka hadlayo, horey baa looga hadlaya, horena waan uga hadlo ilaa dee cali kala geeye iyo ka horba ma ogtahay dowladdii ifaad iyo waxbaa ma ogtahay iyo buugag laga qoray iyo buugan qudhadkiisu ifaad buu ka hadlayaa iyo waqtigeedii. markaas waa soo koobay ileen waa waqtigan gaaban ee ma ogtahay kun iyo waxa weeyaan taariikhdan aan iminka ka hadlay waa 1857 waxaan iminka aan ka hadlay ee masaaridu ay xukumayso ra'uuf baasha uu xukumayay zaylac, waa waqti ay turkigii iyo wixii oo dhan ay ka tag waxaana la odhan jiray horteed gobolka la odhanay dowlad cadaal. dowlad cadaal waa dowladdii dhaxashay ama ka dambaysay ifaad, dowladdii ifaad ee axmed gureyne uu kolkuu harar zaylac ka tegay harar uu tegey uu ka difaaci doono duulamaadka ay zaylac ku soo yihiin xabashidu uu ka difaaci doono si uu uga difaaco uu haagaa harar ugu sii kacay uu ka difaaci jiro. ciidankan kolkaa deed ayaa degay ayaa dadkii deganaa ciisaha iyo hararidii iyo dadkii ma ogtahay xarla iyaa dee ma ogtahay ciidankiisa galay bay ka dhigantahay ee agagaarkaa deganaade oo difaaca galay. marka waa sida uu sheegaya hadda markaa ciisuhu buu yidhi dad aamina dad aan dad muslina aan ku duulayn buu ahaayeen, dad aan xaq darro ma ogtahay aan samaynayn bay ahaayeen, dad aan xoolo xaqanaas aan dhacayn bay ahaayeen, dad cadaaladda islaamka ku dhaqan bay ahaayeen, haddii lagu soo duulase aan laga nabadgelin iyay ahaayeen. bal fiiriya hadda waxa uu leeyahay haddii lagu soo duulase dad aan laga nabadgelin bay ahaayeen, ilaa ay guushooda gaadhaanna aanan dib u soo jeesanin bay ahaayeen, ma soo jeestayaal bay ahaayeen. waa sida uu sheegaya hadda anigu kuma darayo, ma soo jeestayaal bay ahaayeen aan guulna laga gaadhin oo waxa ay halkaaba matalan ku gaadheen ileen zaylac bay kolkoogii hore asalkoogii dhinacaasa ileen ka tageen ma ogtahay halkaa ku gaadheen waxay ahaayeen dad aan laga guulaysanin oo soo majeestayaala, laakiin dad islaama wax islaam la yidhaaho kuma ay duulayn kumana aynan dhacaynin inay ma ogtahay ku duulaan ama ay laayaan. laakiin wixii kale ee ka soo horjeeda aanan islaam ahayn kama aynan soo jeesanayn buu ku leeyahy. geesiyaal bay ahaayeen buu ku leeyahy, geesiyaal lagu sharaf yani lagu faano oo iftikhaar buu yidhi bash lagu ammaano oo lagu sharfiyo oo lagu faano iyay ahaayeen buu ku leeyahy. inkastoo dee maogtahay waqtigu waxaan baashkan idiin soo saari lahaa kolkaa waxa weeyaan bal waxaan idiin akhrihaya haddaad maogtahay sidaad ii fahamtiinna halka aan ka hadlay oka baashkaas oka قبائل الصومال العيسى وكهذا يوحو كليه وأفراد هذه القبائل قبائل عيسى فرسان محاربون ممتازون وقد تصل شجاعتهم إلى حد التهور بدن أيليه هنا ما أكتي أي والولاء وحن أي قوين يام ويان وقد شجاعتهم إلى حد التهور
يستبيحون القتل ويشجعونه ويشجعونه والقاتل نكي أو دلاجة عدوة عندهم شخص جدير بالتقدير أدبر الوقت من يجر شرف للسيني مركا كما جريمة القتل للكفار مدعاة إلى الفخر نينك أم وقتها قال كدلنا أدبر لوغو فاني جريبو كله مركا دتكي مسوجي السياشة markaabuu damcay inuu ma og tahayay waxaanu ka sheekaynaya waxa weeyaan ilaa harar uu kolkuu ku leeyahay 1875 wuxuu ka fikray inuu harar qabsado oo xagga ay harar u duulo markaa dadkii hor kacay weeyaan ilaan dhulkii ma uu garanayo cadow ku jiro iyo meelaha wax kaga soo bixi doono ma uu garanayo kolka iyagaa indhana u ahaa difaacna u ahaa inkastoo ciidan uu ahaa dee isdifaacay laakiinse dee dhulkii buunan garanaynin marka ilaa harar iyagaa geeyey hansana waxa weeyaan waa zaylac waxa weeyaan yaldayse agteeda waana meesha uu ku dhashay axmed gure yaldaysa agteeda yar baadiyaheeda ayuu ku dhashay waa dhul ciise ah nin kastiba ha sheegto axmed gure waa siduu bugu sheegayo yaldaysuu ku dhashu leeyahy kolka waxaanuu soo koobaya oon sii dheeraynaynin oo buugga qayb uga hadli doona waxaan idin leeyahay walaalayaal wax la isku dilo oo islaam isku dilo dhiigga islaamku waa xaaraan weeye ilaahay wuxuu yidhi man qatala mu'minan kaannamaa qatala annaasa jamiican idinkuna maanta waxaad ku doodaysaan dhulkan annagaa le iyo dad baan iyo waan dagaalamaynaa iyo waan qaadanaynaa iyo waan war miinan xaaraan ahayn dad isdhalay oo abti iyo dubri iyo ilma abti iyo habro wadaag ya iyo seedi iyo gacal isku wada abaad tihiin ninka maqani ma jiro marka ma waxaad dili ilmihii walaashaa dhash eed abtiga u ahayd ma ilmihii ilma abtiga aad ahaydeen bal fiiri hadda ma odaygii habaryarta ma odaygii walaasha bal inta isku dhex baleeg say isku dhex jiraan makiibaa dili haddaad karaysaba waa ka ku dhex yaalle ilaan booramaba yaalle ilaa boorama ciisa yuu sheegayaa inuu min zaylac ilaa harar kolkuu ku leeyahay waa boorama iyo dhulkaasoo dhan sii mar weeyaan waxa uu ku sheegaya ciisaha laakiin ciise dee maanta kaama sheeganin oo anaa le dhulka kani oo taariikhda ay sheegtay kuma leh marka adigu maxaad ku sheeganaysaa zaylac iyo dhulka ka ciisaha awdaloo dhan baad sheeganaysaa jabuuti baad sheeganaysaa sida uu sheegaya ninkan ma ogtahay airo t v ka hadlaaya ee beenaalaha ah wuu ku leeyahay markii faransiisku imanayeen iyo ingiriisku nin bay soo direen oo ma ogtahay ka soo waran dhulka ay yidhahdeen korkuu soo laamay bay yidhahdeen maxaad soo aragtay waxaan soo arkay buu yidhi dhul xoolo wata iyo dad xoolo wata iyo dhul boqortooye ah xoolo wata waxba naga qaadi maayaan dad xoolo watana waxba naga qaadi maayaan boqortooyada noogu darana waa intee waa min jabuuti baleeqada ilaa hargeysa ilaa jigjiga ilaa harar ilaa dirdhab markaasaad magaciyaad qaadanaysiin sheekadiisi kolkaabaad ilaa dhulkaasoo dhan dooni doontiin haddii aad saylac ku heshaana inta kalena maad dooni doontiin kolkaasuu naga soo eriyey faransiisku jabuuti kolkuu qabsaday uu ka keenay ciise baadiye maxaanku idhahdayay etoobiya hadalkii in aad qaadateen waxaan idinka daliil idiin hayaa oday hadal
bowrabe ka hadlaya oo hadlaya oo odayaasha ka mid a oo kule ciise dhulka yagan degani ma arkine oo ma naqaane ee ciise baadiye ilka qorqoran baa ka yimiday galbeedka etoobiya oo nala soo degay iminka kule waa hadalkii kaa oo kale weeyaan ee jabuuti ku sheegayay kaas waa boqortooyadii maogta uu sheeganay aan jirin dema dadkaasaad dhegaysanaysin waa kaa kaayiba dhegaystay ku doodaya kule ciise baadiyo baa nagaga yimiday etoobiya oo zaylac soo degay dhulkan besalel oo carruurtiinnii ku dhimantay xaaraan weeye inay ku dhintaan inta idinka dhimatayna allah u naxariisto in kale dambina inay idinkaga dhiman waa ilma abti waa ilma dubri ya wakti uu igu sii dheeraaday inaan maogtahay geed si fiican wakti kale ayaan haddana qaybaha kale ka hadli doonaay marka waxaan idin leeyahay isjira iska dega cudurkan iska saara ee dadkaa xune daafadaha youtuberadu ay idin gelinayaan youtuberadu ay idin gelinayaan bal milka ka soo qaad yani inkastoo kaa ku dhamaysada in cali waraabe ninkan ay leeyihiin haye jabuuti uun iyo ani waxba igama gelin jabuuti iyo ismaaciil laakiin waxaan kuu sheegaya xaqa jabuuti iyo ismaaciil cumar uu suran oo idinku dirayaabay ka dhigan tahayna dee isagayna ka soo cotaa waxaasoo dhan uu ka lacag waayey uu tegey ahaydoo waan ogahay kolkuu wax ka soo waayo weeyaan waxa uu dhibaatadan keenay ma waxaad dhegaysanaysiin ninka la yidhaaho buurmadow ee wax kastaba ku hadlay kolna xaggiinan kolna xaggan kale kolna xaggan ku hadlay ee beenaalaha ee kule ogaaska mar baan qaadon libiya geeyo goorbuu geeshay waaba inan yaroo 10 jir baa 17 jir baa lagu doortay arday buu ahaaye markaasaad ma waxaasaad dhegaysanaysiin ilaahay khayr ha idin siiyo dhulkiinna nicmadiile allah idinka dhigo dhulkiinna ilaahay ha idin deeqsiiyo dhul ballaarsiga iyo cudurrada walaalihiin iyo ilma abtiyaashiin iyo seediyaashiin iyo iska saara anu waa waano walaalnimo jacayl aan idin qabo oo inuu ilmo yari idinka dhinta aanan jeclayn weeyaan waxaan ilaan gabadha ciise haddii aad moogtahay aad dishaan ilmaheedii dee idinka uma iska dilay waa ilmihii gabadhiina ileene gabadhiini ilmaheedii baroorteeda iyo oohinteedu iyo inkaarteedu ayay qaban doontaa kolkaa seedigiin kolkaad dishaan gabadhiinii ayay ka ooyi doontaa kuwan qoryaha idiin sita ee iska kindaafacaya iska dhaaf ee kan sabiilka ah in qorina sidan in waxba sidan in dembi lahayn assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh wacala ilaahay ummadda islaamka ha isku soo jeeda ee xumaanta iskugu soo jeeda ilaahay nabadgelyadeeda ha ka shaqeeyo ilaahay nabadgelyadeeda ha siiyo ilaahay wanaagooga ha isku soo jeediyo dadka soomaaliyeed meeshay doonabaan ha joogaan dibad iyo gudaba dadku waa wada soomaali adduunyadu waxa weeyaan waa qowmiyaad ethoobiya intaas oo qabiil ayay yihiin ama qowmiyadood weliba qabiil mayna waa qowmiyado oy soomaali ka mid tahay oonan midna mid duraynaynin haddii ethoobiya la yidhaahna ay sara kacayaan idinkuse qurunkiina ilaa jilib ayaad isku haysataan jilib baad isku dagaalamaysaan dee xaggay dowladnimo ka iman jilib baad tartan ku galaysaan maamulka jilib baad
madaxtooyada ku dagaalamaysaan madaxtooyada ay ministerkiibaad jilib ku doonaysaan maamul goboleedkiibaad ku doonaysaan marka xaggee baad u socotaan kaa la idinkeen hadduunan jilibkiina ahayn ama maxaanku idhahdaa awnan dadkiina ahayn colaad baad u qaadaysaan isna colaad buu idiin qaadayaa oo wax alla wixii aad doonayseen oo dhan buu baabi'inayaa taa ka dhacday dee hargeysa borami somalilandina mid baan leeyahay war boosaasoba waa taa kaa go'day dadkan ha isku dilin sidii aad wanaag u kala dhexgeli lahayd eed ciisena wixiisa oo dhulkiisa iyo xeerkiisa ileen ogaaskan 19 ogaas baa dhulkan lagu qabtay ka dambe iminkaas soo gashid halkii lagu boqray ileen alma lagu caleema saaray weeyaan ilaan aad u diidaysa bal ka noqo oo dadka isku wanaagooga ka shaqeeyo wanaagooga kolna waan diiday kolna waan ogolaaday kolna waan diiday kolna waan ogolaaday meel ma maraysan waa isku diro ka joogsada sida khayr ku jirana allah idin tuso khayrkana allah idin siiyo waxaad doonaysiin ictiraaf soo maha ictiraafka jaseed ku helaysiin ma isku darki iyo isu dhex dagaalka qabiil la iskugu dagaalamayaa ku lagu helaa laguma hela dee cadow badan baa yaa hareeraha idinka jiba cadowgii baad fursad siinaysiin wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sii badin maaye halkaa baan ku joojinayaa lianna way ila sii ballaarhsamaysaa